garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa 21 January 2019 waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga wadani ee Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo muddooyinka u dambeeyay safar shaqo ku joogay dalka Kenya. gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha waxa afaafka hore ee garoonka diyaar ugu ahaa hoggaanka mas'uuliyiinta xisbiga iyo waliba boqolaal ka mid ah taageerayaashooda oo wata boodhar iyo calamaan ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan soo dhaweynta gudoomiyahooda. Dr. Cirro waxa uu salaan la dhax qaaday taageerayaasha xisbiga ee diyaarka u ahaa waxaana ugu dambeyntii goobta loogu talagalay inuu hadalka ka jeediyo oo aan ka fogeyn madaarka Hargeysa. waxaan ugu horreynba ka warbixiyay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha wadani ujeedada safar ku tagay dalka Kenya waxaana uu sheegay inuu kulamo muhiim ah la qaatay mas'uuliyiinta safaarada kala duwan oo beesha caalamka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland. Dr. Cirro waxa uu sharaxay arrimaha ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta safaaradaha iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay. waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka kaalmooyinka horumarineed ee la siiyo Somaliland. waxaan ka wada hadalnay arrimaha xuquuqul insaanka iyo isbedelada ka socda gobolka ee siyaasadeed dhaqaale iyo bulshada. waxaanu beesha caalamka u bandhignay oo aanu u cadaynay mowqifka xisbiga wadani. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sidoo kale waxa uu ka diiriyay xaaladda waqtigan ee uu dalku marayo waxaanu eedeymo u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi. madaxweyne Riyaale maalintuu ku wareejinayay kulmiye salaada wuxuu yidhi waxaa kaga tegey dal midaysan iyo dad midaysan. waxaa maanta indhihiinna hor taalla oo cad ilaa labadaa muuse iyo kulmiye midna loogu imanayn maanta. dhinaca kalena gudoomiyaha wadani waxa uu ka hadlay heshiiskii 5 qodob ka koobnaa ee ay dhawaan soo wada saareen labada xisbiya kale. mudane Cirro waxa uu ku eedeeyay u ciidiyo kulmiye inay jibinayaan dastuurka dalka isla markaana aanay dalka ka dhacayn doorasho aanu ka qayb galin wadani waa sida uu hadalka u dhigay. gudoomiye Cirro waxa uu mar kale ku celiyay inay ku taagan yihiin mowqifkoodii kala dirista komishiga doorashooyinka qaranka. wuxuu diyaar u yahay in la wada tashado hadday isku dayaan inay ka tashadaan shacbiga inta laga tashadayna way tashanaysaa markaas. gudoomiyaha wadani mudane Cirro isagoo wali hadalkiisa sii wata waxa uu soo bandhigay mowqifka xisbigiisa ee ku aadan muddo kordhinta 9 bilood ee 21 January 2019 ay wakiilada u sameeyeen golaha guurtida Somaliland. waanu soo dhaweynaynaa doorashadu inay qabsoonto 2019 waanu soo dhaweynaynaa. عدفتها حرد عدك بريق أفضل كرونك ديارة